saxaraha aan cidi ku noolayn. Qiso dhab ah, cabsi, yaab, dhacdooyin la diiwaangeliyey. Hordhac. Qisadan ma ahan mala awaal. Waa dhacdooyin laga diiwaangeliyey saxaraha u dhexeeya Masar Suudaan sannadihii 1990 meeyadii, balse xaqiiqdeedu ilaa maanta lama helin jawaab cad. Dadkii ku lugta lahaa badankood waa dhinteen, kuwa badbaadayna weligood ma hadlin marka laga reebo hal nin. Magaciisana wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Al-Hadi. Qaybta hal, safarkii aan loo diyaarin. Cabdiraxmaan wuxuu ahaa darawal gaari xamuul oo ka shaqayn jiray jidka dheer ee saxaraha. Shaqadiisu waxay ahayd inuu cunto, shidaal iyo qalab u qaado qodayaal macdan sharci darro ah oo ku sugnaa meel aan khariidad ku jirin. Maalin Jimce ah ayuu helay wicitaan aan caadi ahayn. Ha weydiin meesha. Lacagtu waa diyaar. Safarka waa hal habeen. Wuxuu qaatay 2 baabuur Land Cruiser ah. 6 nin. Cunto 3 maalmood. Biyo xadidan. Qof walba wuxuu u maleeyay inay tahay safar caadi ah, laakiin saxaruhu qorshe kale ayuu lahaa. Qaybta 2, meeshii khariidada ka baxday. Kadib 9 saacadood oo socdaal ah, gibskii istaagay. Raadiyihii baabuurka wuu aamusay. Dabayl ayaa kacday, mid aan caadi ahayn. Cabdiraxmaan wuxuu yidhi, waxaan dareemay sidii inaan galnay meel kale. Meel aan dunida ka tirsanayn. Saacad kadib waxay arkeen dhismo duug ah. Derbi dhoobo ah. Albaab bir ah oo miridh ah. Calaamad qoran luuqad aan Carabi ahayn, aan Ingiriis ahayn. Mid ka mid ah nimanka ayaa qoslay, bal eeg. Saxaraha cid buu leeyahay. Qosolku wuu istaagay markii albaabku iskiis u furmay. Qaybta 3, codadka habeenkii. Habeenkaas waxay degeen meel u dhow dhismaha. Saacaddu markay ahayd 2:07 habeenimo. Cabdiraxmaan wuxuu maqlay qof tukanaya. Laakiin qofna ma toosin. Codku wuxuu ka imaanayay dhulka hoostiisa. Markuu ku dhawaaqay, yaa jira. Codkii wuu beddelay. Wuxuu noqday qosol carruureed. Subaxdii, hal nin waa la waayay. Raad ma jiro. Dhiig ma jiro. Baabuurkiisii wuu furnaa. Qaybta 4, meeshii aan magac lahayn. Maalintii labaad waxay go'aansadeen. Qaybta 5, hoos u dhaadhac. Cabdiraxmaan iyo 3 nin oo keliya ayaa haray. Gaajo. Haraad. Cabsi. Habeenkii 3aad dhismihii wuu iftiimay. Laakiin iftiin aan nal ahayn.